cabdiraxmaan maxamed geelle oo ah guddoomiyaha xisbiga raad ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in dadka xabsiga la dhigay ay si nabad ah ku cabirayeen fikirkooda isagoo ku dhaliilay dowladda caburin iyo in aanay ogolayn aragtida bulshada ee baahiyaha taagan. qadka telefoonka ayuu igu warramay cabdiraxmaan maxamed geelle guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee raad. waxaan ka cabanaynaa kulley annagu waxa weeyaan bulshada ayaan u hadalnaa maadaama aan bulshada u hadalno waxaan ay bulshadu ka cabanaysaa ayaan annagu ka cabanaynaa oo ah inay noloshii ay cirka isku shareertay shaqaalaha dawladdu iyo shaqaalaha shirkadaha madaxa bannaan iyo ciidamadii uunan iska dhabaynin nolosha qaaliyowday oo cirka isku shareertay 4 dhalinyaro oo inamaa ayaa dawladdu ay haysataa waxay cabirayeen nolosha qaaliyowday ee cidhiidhiga gashay iyo waxqabad la'aanta dawladda ayay daliilayeen iyo koo hor fadhiistay guriga baarlamaanka hortiisa waxa kaloo xidhan nin kale oo isaguna taageerayaasha xisbiga iyaga ka mid ahna odayaada iyo guddida oo runtii waxyaabo cajiiba lagu xidhay oo ah wax lala yaabo taasoo ninkaasi inuu cabirayay ciyaarta wilwilaha loo yaqaano dhexdeeda maciishada oo qaaliyowday. laakiin taageerayaashiinu inay baarlamaanka hor fadhiistaan miyaanay noqon karin nooc fawda ah? marka la eego guriga shacbiga ayaa leh marka fadhiga ay halkaasi fadhiisteen fadhi nabadaysan ayuu ahaa fadhi ay ku cabirayeen fikirkooga ayuu ahaa. miyaana u jirin marka qaab kale oo aan dibadbax iyo in baarlamaanka la hor fadhiistaan ahayn oo aad fikirkiina ku cabiri kartaan? waxa weeye anagu waxaan soo saarnaa warbixinno ayaan soo saarnaa waan ka hadalay aniga kula hadlay waan ka hadlay laakiin nasiib darro dawladdu dheg jalaq uma siinayso marka maadaama siyaasiyiintii mucaaradka aan nahay fikirkeega siyaasadeed ee raad aan xambaarsan nahayna waxaa jira qaabab kale oo aan ku cabiri karno muhiimiyadda iyo lafdhabarkuna ay tahay in la ilaaliyo ammaanka iyo nabadgelyada lana ilaaliyo hay-adaha u dhaxeeya shacabka ee dawladnimada la ilaaliyo. waxaan ka soo horjeednaa annagu waa taliska iyo maamulka iyo nidaam darrada iyo noloshan qaaligaan ka soo horjeednaa. meeqa qof oo ka mid ah taageerayaasha mucaaradka oo hadda xiran? 5 qof baa naga xidhan 5taa qof waxaa kala haysta ciidamada jandaranka iyo ciidamada booliska. ma booqateen marka dadkan laydinka xirxiray ee taageerayaashiina ahaa? waan booqannay oo saakadan haddan kula hadlaya ayaan ka soo laabtay anigii iyo maad aragtay madaxda xisbiga raad oo aan u tagno laakiin nasiib darro maanu arkin marka laguma ogolo inaad dadkii xaalkooga aad waraysan kartid ood arki kartid ood la sheekaysan kartid. laakiin guddoomiye marka aad samaynayseen dibadbaxyo haddii aad tihiin mucaaradkaas oo ma habboona in dawladda aad ruqso weydiisataan haddii ay idiin ogolaatana sidaa aad dibadbax ku samaysaan haddii aan laydiin ogolaanna aad joojisaan intii dhibaata ka imaan lahayd? waxa weeye horta taliskani anigan kula hadlaya warqad ayaan dhigay bishii Maars ee kal hore si aan u bannaan bixi karno waayo waxaan kuu sheegayaa walaal in taliskani uu yahay talis caburiya xurriyatul qowlka iyo dibadbaxyada caburiya marka annagu haddaan nahay raad hawlaha ama ficiladaan samaynayni waa ficilo madax bannaan halgan ayaan ku jirnaa nabadaysan ficilada aan qabanina ama taageerayaasheedu ay qabtaanna waa ficilo nabadaysan ilaalinaya ammaanka iyo nabadgelyada dadka iyo dalkaba. dawladdu ayadaa dalka ka talisa iyada dabcan howlahanna u xil saaran haddii ay tahay dhaqaalaha ama maciishada iyo wixii adeegyada bulshada ku saabsan marka adinku dibadbaxan iyo cabashadan aad samaynaysaan soo uma eka mid ka badbadin ah? waxaan gudanaynaa waajibkayagii oo ah inaan dawladda wixii ay dhib bulshada u geysanayso aan bulshadeeda u heelino ka hortegno aan u macnayno cabirnana fikirkooga waayo annaka ayaa xambaarsan mabaadi'da bulshadu ay rabto. cabdiraxmaan maxamed geelle guddoomiyaha xisbiga raad ee mucaaradka ah ee dalka Jabuuti oo ii warramayay kaasi ahaa markan